gabdhaha quruxda badan ay ugu horeeyaan saxaafadda runtii safarka ujeedka ugu weyn ugu maanay tahay reer Beledweyne runtii awaal oo wanaag alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ba'd marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo suurta galiyay riyadaydii ahayd inaan magaalada Beledweyne iyo dadkeeda qiimaha badan baan soo booqdo intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa walaalihii ila socday hawshan igala shaqeeyay sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa bulshada qaybaheeda kala duwan gabdhaha quruxda badan ee ugu horeeyaan saxaafadda guud ahaan idinkoo isku duuban waan ogahay isagoo qof walba shaqo u gooni ah leh inaad haddana qorraxda annaga dartan aad u taagnaydeen marka sharaf iyo karaamay noo tahay taasina waxay uun i dareensiinaysaa kalgacalkii markii horeba aan magaaladan u qabay waxaan idinku imid uun ehelnimo waxaan jecelahay inaan maaragtay nolosha magaalada wax ka arko waxaan jecelahay inaan dhalinyarada dhiiri geliyo waxaan jecelahay inaan qaybaha kala duwan ee bulshada la kulmo marka aad baa u mahadsantihiin Allah idin barakeeyo taas ku soo koobay bismillahir rahmaanir rahiim ugu horeen gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle walaalkii Cabdirashaaq sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan walaalkii Maxamed Cabdullaahi xogayaha sportiga Hirshabeelle dhalinyarada arrimaha bulshada Hirshabeelle sidoo kale bahweynta magaalada dhalinyarada reer Beledweyne dhamaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka wa salaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay markii labaad inaan magaalada Beledweyne imaade bisha corona aan weligiis imaanin أنا مركو جوري سمعنا مركي لبعض واي سجالي تمك أقول دبيشة حلي أمر سمفلو مناي وأنا كفر عشان هاي مانتين صور صاحبك عبد الصديق أرنتي سفر وجدت كأبوين أو ما نتاهي reer Beledweyne runtii awaal oo wanaag u sameeyeen in oo mudnaantaas oo soo xusay darteed awalkaasna reer Beledweyne soo dhaweyn oo diiran ugu sameeyeen waa la daalan yahay qoraxda ma saak ilaa ay taagnadeen wixii hadal wada sheekaysi ee labada bari aan joognaa waqti uu qooda qaadan doona aadan iga maad jeclina sidii wanaagsan oo qiimaha badan salaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh